kalna saaxiiba iyo kitaabka tasbiixdana badiya wax kaloo dhan iska ilow waa haddaad darajo rabto waa haddaad qurux rabto waa haddaad caafimaad rabto waa haddaad wanaag rabto waa haddaad qabow rabto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay walaalahayga sharafta leh asxaabtayda qaaliga ah waa walaashin ilfis channelkaad iga daawanaysaan waa ilfis family channel ilaahay subxaana watacaala ha idin barakeeyo ilaahayna ha idin ilaaliyo dhammaanteen allah raxmaanka hana ilaaliyo allah raxmaankana hana wada xifdiyo biidni illaahi kariim bisha rabadaan oo barakaysan kuwii ilaahayga raxmaanka ah cibaadadiisa si wanaagsan u guto oo laga aqbalo ilaahayga raxmaanka hanaga dhigo kuwa soonkooda iyo salaadooda la ajiibo oon la soo celinin ilaahayga raxmaanka hanaga dhigo kuwa xuska ay alla xusaan laga ajiibo oon lagu soo celin ilaahayga raxmaanka hanaga dhigo dadka salaadaha ay tukadaan iyo cibaadada ay akhristaan lagu soo celiyo oo wejiga looga soo dhufto ilaahayow rabbiyow raxmaanow hanaga dhigin adaan ku barinay oo ilaahayow rabbiyow bishaan barakadeeda iyo cibaadadeeda iyo fadligeeda iyo caafimaadkeeda ilaahayow rabbiyow raxmaanowna sii inta xanuunsan oo islaam oo sariiraha xanuunka la saaran allah raxmaanka ka dulqaado inta caafimaad qabta allah u siyaadiyo dhallinyarada ilaahayga raxmaanka ha wanaajiyo ilaahay ha soo hanuuniyo wiilasha iyo gabdhaha dhallinyarada allah raxmaanka soo hanuuniyo ilaahayna hanoo soo hadeeyo ilaahayna jid kasan oo wanaagsan oo khaatumada le ilaahay ha ku duwo hooyo walbana ubadkeeda way dhashay way kusoo dhimatay way shinsanaysaa ilaahayga raxmaanka waxaa ka dheefsiiyo ilaahay kuwa wax u taro oo anfaco ayada ilaahay subxaana watacaala ha oga dhigo biidni illaahi kariim aabbo walba iyo hooyo walbaba ubadkooda allah u barakeeyo allahna u ilaaliyo allahna u xifdiyo allahna u wanaajiyo walaalayaal casharkan maanta aan idiin wado waa cashar muhiima oo aad iyo aad weliba muhiim u ah oo weyn casharkan wuxuu muhiim u yahay qof kasta oo islaama wuxuu muhiim u yahay qof kasta oo fahmaya luuqadda aan ku hadlayo oo haddana muslim ah ayuu muhiim u yahay haddana khaasatan wuxuu muhiim usuu yahay dumarka ayuu muhiim usii yahay soomaali dhammaanteedna muhiim buu u yahay waa walaashin ilfis ani waan yaabay soomaaliyey maalin markuu rabadaan dhalanayo shalay iyo maanta wallaahi bilaahi waan yaaba suuqa meel aan istaagaan garan waaye meel aan bili aadan ka maraan garan waaye anoo suuqaa alaabo yar u doontay waa iska adeega xaafadda caadiga ah anoo u raadsaday rabadaanka markuu dhalanayo rabadaan waa bil cibaadee ma bil calool la dharjiyo iyo bil cunto laga fikiraa ani waan yaabay rabadaankase muxuu bilaha kale ood nooshihiin uga duwan yahay oo dabka shidataan muxuu uga duwan yahay soomaaliya su-aashaas bal iiga soo jawaaba adinka rabadaanka bilaha kale oo nool nahoon dadka caadiga nahay muxuu uga duwan yahay rabadaanka maxaa rabadaanka u qamaamtaan sidai ari abqa loo daadiyey rabadaan baa dhashay maacuun maaragta bakeeri maaragta abriiq maaragta digsi maaragta saxan maaragta hebelow maaragta kii kale maaragta saxan iyo abriiq iyo digsi awalba guriga way ku yaaleen abriiq la-aan iyo digsi la-aan kuma haynin galaas awalba guriga wuu ku yaalay bakeeri awalba guriga wuu ku yaalay ani waxaan fahmi waaye rabadaan muxuu bilaha kale uga duwan yahay rabadaan waa bil cibaado waa bil alla bari waa bil ilaahay la xuso waa bil ilaahay la xasuusto bishaas waxaa la rabaa inaad ku qamaamtaan ood ka fikirtaan kutubta iyo tusbaxyada inaad ka fikirtaan la rabaa kutubta iyo tusbaxyada aad ku tasbiixsan laheedeen kutubta qur-aanka ood akhrin laheedeen qofkii aan kutubka qur-aanka kicin karin qalin qur-aan ayaa waa laguu fududeeyey qalin qur-aanka lagu bartaa laguu keenay suuqa gaarisa loo joogto bishaa rabadaan qalinka qur-aanka soo gado ku baro adoo xilli kasta cibaado lagaa rabo oo xilli kasta alle xus lagaa rabo oo xilli kasta digriga ilaah lagaa rabo inaad hayso haddana bisha rabadaan waa bil khaasatan haddana cibaado waay waa bish la yiri indhihiina hoos geeya oo dhegihiina maqalka tira waa bish la yiri maxay ta bishaa rabadaanood sida ari abqa loo daadiyo un aad raadinaysiin wax la cuno iyo weel wax lagu shuba iyo wax la xira iyo roog meel la dhiga iyo shumac awalba roog wuu ku yaalay awalba kursi wuu ku yaalay awalba weel wuu ku yaalay weelashaada ku maamulo lacagta aad ku khasaarinayso waxaas iyo qababacdaas iyo weelashaas iyo qashinkaas lacagta ku khasaarinayso dad masaakiin oon afuri karin baa jira sii dad masaakiin oon afur haysanin oon afuri karin dad adiga qababac iyo wax cusub iyo rabto inaad iscusboonaysiiso sidii iidiyo kale haddaad rabto bishaan waa bil cibaade dadaan soomi karinaa jira dadkaas ku sadaqayso ha ku soomeene dadkaas isaga ku sadaqaysa ha ku soomeene eheladaada laga yaabaa inay baahan yihiin markaas adina waxaad raadinaysaa qababac iyo wax dheeraada iyo kala orod baad xulaysaa bisha rabadaan
saddex xabood timir ah iyo galaas biyaa kaa badan koob shaaxa kaa badan koob shurbadaa kaa badan maba loo baahnaba inaad 9 dheri iyo 9 cunno kala nooc inaad dhigto looma baahno dadaa waxay sameeyaan waxay soo duubaan cunooyin tiro ilaahay ka badan intaanoo nooc kan waa hebelow kale kan waa kii kale kan waa kuus kale waxaas wax wanaagsan ma ahan bishaan waa bil cibaado waa bil alla bari waa bil alla ka cabsi jaanis waqtiyaad haysataa ka faa'iideyso aniga ilfis intaad maacuun iyo qababac iyo wax bil rabadaan lagu soomo wallaahi inaan raadin abtinow saacadaas la joogo bil rabadaan way soo gelaysaa bil rabadaan hal mid aa oga tashanayaa hal mida ayaan culayska saaray oo ilaa hadda igu taagan oo la taahaya hal mid ayaan culayska saaray inaan bisha rabadaan 14 boqolka quraanka intaan soo bilaabo aan dhameeyo ilaahay hadduu nolosheeda isiiyo caafimaadkeeda isiiyo allah raxmaanka garashadeeda isiiyo ilaahay ii fududeeyo ilaahay raxmaanka adinkana ii soo duceeyo inuu ilaahay bisha rabadaan quraanka inuu ilaahay ii fududeeyo bishaas rabadaan ii soo duceeyo anoo markasta aqriyo quraanka oo mar walba ku dhex jiro oo subax aqriyo oo habeen aqriyo haddana bishan waxay ii tahay bisha 14 boqolka hal bil aan ku dhamayn karo xilliyada kale waxaa laga yaabaa inaan saaka aan ka aqriyay maqro biri waxaa laga yaabaa inaan ka aqriyo suurad laba biri kadib waxaa laga yaabaa inaan aqriyo jus saasay ahayd waxaa laga yaabaa 3 bilood 2 bilood inaan wado quraanka laakiin bisha rabadaan waxaan jeclahay bisha rabadaan 14 boqolka quraanka inaan aqriyo yaan jeclaa adinkana ii soo duceeya inuu ilaahay raxmaanka ii fududeeyo inaan 14 boqolka bisha rabadaan aan aqriyo oon xifdiyo quraanka ilaahay inaan xifdiyo waan rabaa ilaahay xujaha iiga dhigin ilaahay xujaha iiga dhigin rabbiyo insha Allah ta'ala waan ku tala jiraa sidaan ku xifdin lahaa biidnillaahi kariim ilaahayna insha Allah ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inuu ii fududeeyo oo igu kaalmeeyaan ilaahay raxmaanka ka rajeynayaa adinkana ii soo duceeyay islaamaatihiin bishaan dumarka la hadlayaa bishan aad sambuuska iyo madhaasiga iyo qashinka iyo qajaabirka iyo qurunka aad ka fikiraysiin cibaadadiina ka fikira bishan waa bil cibaadaysta bishan wallahi been idinma sheegayo waxaan raadinayay 7 beri hadda waxaan raadinayaa oon u taaganahay bisha rabadaan qof jikada ilmaha iigu galo jikada rabadaan bilaha kale kama duwana wixii la cuni jiro unbaa la cunayaa bisha rabadaan qof jikada caruurta iigu galo oo jikada iga qabto oo afar markii la gaaro wixii la cuni lahaa ilaahay raxmaanka oo noo qadaray waxay doonaan ha noqdeen wuxuu ilaahay noo qadaray oo la cuni lahaa qof noo kariyo si aanan u qaadin baweel oonan kutubka ilaahay uga dulkicin oon kutubka ilaahay u aqriyo oon kutubka ilaahay ugu forraabin imaaninba waayo bishan waa bil cibaado waa bil alla bari tasbiixdana badiya kan la saaxiiba iyo kitaabka kan iyo kitaabka quraanka la saaxiiba wax kale oo iska ilow waa hadaa darajo rabto waa hadaa qurux rabto waa hadaa caafimaad rabto waa hadaa wanaag rabto waa hadaa qabow rabto taladaas idin siinaya gowlashin ilfis isu soo duceyno dhammaanteen isu soo duceyno walaalaha muslimiinta oo dhibana aanu duceyno dadka agoomaha haysta u duceyno dadka masaakiinta oo waxba haysan oo afur haysan oo afuri karin ilaahay aanu barin oo gacmaha cirka ugu taagno ilaahay qof walbo islaam oo dhiman dhibka Allah ka qaado muslimiintan Allah dhibka ka qaado reer Falastiin ilaahay raxmaanka dhibka ka qaado iyo dhibaatooyinka isdaba in ilaahay kariim bisha rabadaan qof walbo oo islaam xil baa ka saaran ha loo duceeyo reer Falastiin qof walbo oo islaam bisha reer Falastiin ha u duceeyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh billahi tawfiiq